xiisa dagaal oo culus ayaa ka tagan magaalada Kalkacyo xarunta gobolka Mudug halkaas oo maamulka Puntland uu saacadii la soo dhaafay si weyn ciidamo ugu daabulay iyadoo dhankeeda kale ay ku sugan yihiin magaalada Kalkacyo ciidamada militariga Soomaaliya oo halkaasi muddooyinkii la soo dhaafay si weyn dowladda federaalka Soomaaliya diyaarada ciidamada sida ay uga dejisay xiisada ka tagan gudaha magaalada Kalkacyo ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahayd mid bilow ah balse haatan waxa ay noqotay mid ciidamada ay halkaasi laga cabsi qabo inay ku dagaalamaan maamulka Puntland ayaa la sheegay in ciidamadii oo halkaasi maanta geeyay oo tirada badnaa ay dul dhigtay halka ay ku sugan yihiin xero ciidan oo militariga Soomaaliya taas oo si weyn looga cabsi qabo in ciidamadaasi halkaasi ku dagaalamaan maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa khilaaf culus muddooyinkii la soo dhaafay si weyn uga dhaxeeyay iyadoona haatan khilaafkoodu uu noqonayo mid sare kac weyn muujinayo xilli maamulka Puntland oo si weyn u diidan yahay in deegaanada ay maamusho ay ka howlgalaan ciidamada federaalka ah hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu si cad u sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada militariga ay gabi ahaanba ka howlgali karin deegaanadaasi sidoo kalena aan lagu dhaxar karin ciidamo aan ka amar qaadan maamulka Puntland taa oo si weyn dowladda federaalka Soomaaliya ay arinkaasi uga gaduuday iyadoona muddooyinkii la soo dhaafay si weyn halkaasi ciidamo u geysay qaybo kamid ah deegaanada maamulka Puntland waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo culus halkaas oo ay ka sugan yihiin ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada hogaamiyaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani oo si weyn u diidan in ciidamo aan ka amar qaadan maamulkaasi ay ka howlgalaan deegaanadaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaanka maamulka Puntland ayaa si weyn isugu hayay maalmihii la soo dhaafay ciidamada halkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dejinayso iyo sidoo kale ciidamada BSF-ta oo ka goosta maamulkaasi sidoo kalena ku biiray ciidamada militariga Soomaaliya taas oo si weyn dowladda federaalka Soomaaliya u soo dhibay sidoo kalena ay u qortay mushaaraad maamulka Puntland ayaana waxa halkaasi muddooyinkii la soo dhaafay ay ka sameeysay howlgallo isdaba joog ah iyo sidoo kale in halkaasi ciidamo tiro badan ay ku daabusho goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada federaalka khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa waxa uu sab ku haya arrimo la xiriira wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale hanaanka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wax ku wado taas oo maamulka Puntland oo si weyn uga soo horjeesteen iyadoona labada dhinac loo dirayo baaqiyo si halkaasi xaalad u dajiyaan ciidamada isdul yaalana ay u kala qaadaan iyadoona arintaasi ay ka dhaga fureysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hogaanka maamulkaasi Puntland xilli halkaasi saacadaha soo socda la warinayo inay gaari doonaan ciidamo federaal ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka amar qaata taas oo si weyn maamulka Puntland ay u diidan tahay